fadlan 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 qofka walaalka ah ha niyad jabinin, adigana ha isniyad jabinin. Dardaarankayga waxaa waaye inaadan weligaa ku fakerin guushaada hal maalin waaye. maanta haddaa guuldareysatid biri waa guuleysanaysaa. waa haddii niyadaada aqayr u sheegtid. dhammaantiin waa idin jeclahay, ilahay dartiisa idin jeclahay, ilaah idin guuleysiiyo sidaa u dhantihiin. waxaa idin leeyahay khayr iyo caafimaad, farxad, bashbash iyo barwaaqo ku noolaada. waxaan noo wada dardaarmayaa inaan wada guuleysano oo aan gaarno meesha. run ahaantii farxadayda ma la soo koobi karo, mana la qiyaasi karo. sababtuna maxay tahay dheh, sida quruxda badan iyo qiimaha badan ood ugu soo falceliseen codayntii qiimaha laheyd gabdhaha walaalaheena ku tartamayeen. maasha allah 1,050 commenti ahayna ku dheh 1,050 fariimood oo inta socdayna hataa qof la jiray isahayna qof la socdayna hal qof walba oo hal qof u codaynaya ka waran. maasha allah tabaarakallah. aad iyo aad u mahadsantiin, aad iyo aad iga farxiseen. idinkan waxaa idin leeyahay allah idin barakeeyo, allah idin guuleysiisa u dhantiin. asxaabta ku xiran janalkayga iyo dadka cusub ee ugu soo biiray iyo dadka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا سلامي دمان ولا لا قحرن channelكي وبركست adduunka joogtiin. waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad, farxad bil intiina ogeed oo la socotay iyo intaan ogeynba waayadan waa mashquulshanaa isbitaal aa lagu mashquulshanaa, ma fahmino. marka asxaabta intii ogeed inta kalena community-ga ka arkeen inaa isbitaal ku jiray. hadda alxamdulillaah waan fiicannahay maasha allah. dadka isbitaalka u tago way soo dhammaatay, ilaahay mahadiisa la qabaa. sidaas darteeda caawa waa mar kaleeta iyo natiijadii codayntii 3 gabdhood oo kale soo baxay. waqtiga aan videoga duubay waa habeen dhexe, indhayga xataa hurdo sayda ku muuqato. waxaan ka joogi waayay waqtigaan aan usoo duubay waxay tahay whatsappka oo mar walba liigu soo weydiinaya su-aalaha ah aaway videogii, aaway natiijadii, maxaa ku dhacay natiijadii. sidaas darteed ba waxaan go-aansaday natiijada inaan caawanimo duubo subaxdiina oo idiin soo galo. haddaan hadda ka seexdo ama aan maxaa dhihi jira dib usii dhigto waxay noqonaysaa somaha late. marka wixii soo daahana kheyr baa ku jiro haliska dhehee. anigana dandaas ay haysatay waayadan aan ku mashquulshanaa. sidaas darteeda aad iyo aad baa u wada mahadsantihiin dhammaantiina gabdhaha kasoo qaybgalay tartanka iyo inta aan kasoo qaybgalin asxaabta tartanka soo codeysay intaba. waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin maasha allah tabaarakallah. horta tartama iskuma jiraan. tartanka muxuu ahaa tartankii ugu yaabka iyo cajiibka iyo istacajabka badnaa. sababta maxay tahay dheh, videoga viewskiisa iyo commentigiisa saasay ahaayeen ku dheh, wax jar ay isku jirsadeen. taas maxay ku cadaynaysaa qof walba oo comment videogaas fiirsaday inuu comment kasoo dhiibtay. midaas waa mid aad iyo aad u fiican, waan idinkaga mahadcelinayaa maasha allah. inaysan jirin qof asoo fikir ka dhiiban uusan ka laaban meeshaas, wax yar ma ahane. inta badanna dadka natiijadooda aad iyo aad bay isugu dhaweyd, oo natiijada gabdhaha aad isugu dhaweyd, ma aan la kala badnayn. intii waxaa la isku jirsadaa ku dheh far iyo suul maa dhihi jira, inta isku jirsadaan oo kale la isku jirsaday. maasha allah waa ku faraxsanahay inay gabdho intaas oo dadaal ay wada sameeyeen. gabdho badan oo aad iyo aad u taageerayay aa soo baxay, kuwa badan oo aad iyo aad u taageera haray. taas macnaheedana ma ahan horaan igu sheegay inuu qofka harayna uu yahay qofka ugu cunto kariska xun, kan soo baxayna uu yahay qofka ugu cunto kariska fiican. kaliya waa in dadka ay wada tartameen. haddii mar la tartamo tartan meesha uu imaadana tartanka sidiisaba 2 qof haddii tartamo qof ba soo bixi. haddii 2 qof wada ordo qof le haray qof la guuleysanayo orodka kusoo baxay sama. sidaas darteed inaa u fahantiin waaye mar walba tartanka aan qabanayno inuu yahay tartan oo ah dhiirigelin iyo maxaa la dhihi jiray isxasuusin iyo inaan isbooqano naftirkeena is ogaano. qofba qofka kaleeto janalkiisa uu arko ogaado. hadday maanta aniga aqoonin biri waxaa laga yaabaa inaa adigu
matalan laga yaabo baayo oo channelkeeda aan soo qaatay iyo baayo kale soo qaatay inaan is aqoonin saas darteed markay tartan ay wada imaadaan ama meesha isugu imaadaan waxaa dhacaysa inuu qofka kale channelkiisa u soo fiiriyo halkaasna ay isbarasho iyo isdhexgal iyo iska warqab badan oo ka imaado marka ujeedada iyo hadafka inta ugu badan aan ka leeyahay tartankaana waxaa weeye midaas ayada ah in dadku ay isbartaan isdhexgalno annaga aan isgarab istaagno isgarab qabano aan is ogaano naftirkeena aana noqonin dad iska socdo oo meel u socdo meel hadafkanaga uu ahaada hadaf isku wada duubni iyo isjacayl ku dhisan aana noqonin xaqdiyiin iyo xaasidiin kala xasdiyo qof walba qofka kala guushiisa qof walba qofka kaleeto horumarkiisa ka hortaago haddaa adiga maanta horumarkay ku farxid adna beri horumarkaaga waa ku farxaa sooma laakiin haddaan dhaho hiblaayo maxaa waxyaga galay maxay ii sameynaysaa maxay ii sheegaysa haddaan dhaho xiqdigaas aniga caloosha iiga jiro hadhow waxaa laga yaaba inuu dib u dhac uu igu keeno saas darteeda inaan noqono dad isku xiran isku duuban oo walaalo oo hal meel u wada duulo inaan noqono aan noo wada rajeynaya insha allah gabdhaha iga codsaday inaan sameeyo part 3 tartanka cunto karinta insha allah waa sameynayaa waxaa ku xigo tartanka cunto karinta part 3 markaan sameeyo hadduu ilaahay yidhaahdo sababtoo aan codsiga mar walba inaan tixgeliyo waa ku qasbanahay ilaa inta ay jirto gabar rabta inay ka qayb gasho tartankaasna wuu soconaa ilaa part 10 hadduu noqdo xataa insha allah laakiin tartanka kaloo nagasta ku xigi doona insha allah wuxuu noqonaa haddii part 3 soo dhammaado tartanka isqurxinta gabdhaha beautyga aan u qabanaya insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo gabar kasta oo beauty ah wuu u furan yahay kusoo qayb geli kartaa inta aan aqaano waa aqaana inta aan aqoonina insha allah waa arki doonaa gabdhaha ugu qurxan beautyga aan kusoo qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo gabdho waxaa jira isqurxinta healthiga sameeyo iyo kuwa oo natural ah iyo kuwa maxaa dhihi jiray daawooyinkii caadiga hore la marsan jiray soo geliyso maaha insha allah iyagana laba u kala qaadi doonaa si loogu kala faa'iidaysto maadaama daawooyinka naturalka ah oo dadka ismarinayaan ay tahay daawooyinka aadka u fiican oo qofka aan waxba u dhimeynin jirkiisa iyo mustaqbalkiisa midna insha allah midaas waxay noqon doontaa faahfaahinteeda iyo faaladeeda videoga aan ugu qaban doona tartankaas gabdhaha isqurxinta aan ugu qaban doono hadda laakiin midkan waa tartankii gabdhaha ugu cunto karinta fiican part 2 anyway part 2 yaa kusoo baxay yaase guuleystay yaase haray haridba dhihi karnee yaa laga codbatay cod le waa meesha maahane la kala guuleystay oo ma ahan qofku inuu xun yahay inuu fiican yahay ma ahan horaa in kugu sheegay madas ayada ah ina aad u fahantiin aan dareemayahay caawan ayaan laga qabanin video waqtigan duubay hurdo maskaxiyan aana u daalanahay laakiinse inaan duubo waxa ugu kalifay waa inaa codsiga igu soo noqnoqda videoga xataa videoga hadiyadiisii la sugi waayaa la dhahay hadiyadiisa ha dambaysa horta natiijadiisa sheeg natiijadiisa inaan sheegana diyaar baa u ahay waxaan kaloo idin sheegayaa oon idin cadeynayaa gabdhihii ku tartamay saddexdii part 1 saddexda gabdhood ku tartamo kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad kale mid walba geesteeda ula hadlay marka laga reebo hal gabara ayagana codadkooda inay idin soo daayaan raba cawada oo kusoo daro barnaamijkan siday barnaamijka u arkaan sida ay maxaa la dhihi jiray ay u arkaan hadiyadooda meeshaan ugu soo hagaajin lahaa ee qaabka ay ku qaadan lahayn intaba waxaa kaloo laga codsaday inay hadiyada noqoto hadiyadaha aan bixinay ay noqoto hadiyada sir ah midaas idinkaa soo cadeyn doontiin haddii hadiyada aan public kasoo dhigo mar kaleeto iyo haddii aan sir ka dhiga intaba laakiinse mid gabar walba waxay idin sheegi doontaa aan codadkooda idin soo dayn doonaa next video hadduu ilaahay yidhaahdo qaabka hadiyadeeda ay ugu qaadan lahayd meesha ugu soo hagaajin lahay kuwa jooga dalka iyo kuwa maqanba qaabka ku qaadan lahaayeen hadda gabadha gashay kaalinta koowaad part 2 barnaamijka part 2 gabadha gashay kaalinta koowaad ayaa codkeeda maqli doontiin hadduu ilaahay idinka maqashiin doonaa markaa natiijada sheegay kadib siday barnaamijku u aragto iyo guusha ay gaartay siday u aragto insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin walaalahay soomaaliyeed dhammaan adduunka dacaladiisa joogo waxaan idin leeyahay guuleysta guul waxaan baa idin rajeynayaa mar walbeetana aan isku duubnaano isku duubni ayaa wax lagu gaari karaa hore waa idinkugu sheegay tartanka cajiibsan weli ma qabanin mana isoo marin sababtoo dadka aad bay isugu dhawaayeen natiijooyinkooda dhibcahooda aad bay isugu dhawaayeen
qof walba intuu keensaday aad bay isugu dhawaayeen aad iyo aadna wuu u tiro badnaa oo 1,050 message buu ahaa 1,050 commenti aan kasoo saaray saddexda gabdhood oo ugu commentiga badnaa taas waa dareemi kartid dhibka laga maraayo haddaa idin sheega marka natiijada sida ay ahayd kaalinta saddexaad tartankan waxaa gashay gabadha lagu magacaabo Sacdiya Catoosh waxay heshay 85 ka mid ah codad commentiyadii lasoo dhiibtay laga soo dhiibtay codeynta waxaa kaalinta labaad gashay oo ayadana kaalinta labaad gashay Nasiim Janaal waxay heshay 217 codadkii lasoo dhiibtay maasha Allah tabaarakallah Nasiim Janaal xabiibti waxaa ku leeyahay guul iyo horumar wacan kaalinta koowaad ba sugaysiin kaalinta koowaad waxaa gashay Shukri Harag Shabeel waxay heshay 295 cod maasha Allah tabaarakallah Shukri Harag Shabeel aad baan kugu hambalyeynaa alif mabruuk waxaan ku leeyahay guul iyo horumar wacan intaas iyo inka badanna waan kuusii rajeynayaa xabiibti adiga iyo gabdhaha walaalaha ah horena waan kuu sheegay qofkii haray uma harin cunto karinimo xumo Soomaaliga oo qaldoya qofka guuleystana uma soo bixin cunto karisnimo fiican ee gabdhuhu dhammaantood waa wada gabdho dadaalay horumar ku higsaday qof soo gali lahaa social media hadduuse isubinna maba jiro ama YouTube soo fadhiisan lahaa waxaan aaminsanahay marka gabdhahaas dhammaantood inay yihiin gabdho wada guuleystay dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa wada guuleysateen anaga dhan waa wada guuleysanay guushiinana waa guusheena aad u mahadsantahay waxaan ka codsanayaa videoga inaad like iyo saartiin iyo share gareysiin aad ka heshiin waxaa kaloo idin maqashiinayaa codkii walaasheen Shukri Harag Shabeel insha Allah dhageysi waxa الله الرحمن الرحيم ولا شيء شكرا رجال فرتون على أبايو برنامج كان قروح ضبضن أو أذية أدنى قبطي هذا وقمات سنتهي سدا هاد وقبطي سكسي في عن أنتي لمن أبايو وسيوت مدي ذاك لترتن كان جوش أنا عن ما أنت جاري أنا كل جاي مجارين أنا قد ما وذا جارني إنك استوى ترتن كوقفنا هدي لترتمو ما ركتي قف وقصوا بحايو قارن هراين سيد إسكولة وكله أبايو هذا وقمات سنتهي وأنا كفر حسن هاي ترتن كأنا جلسة يصير دا عد وهذا وقصوا بحذي oo dadka u kala eexan waana ku mahadsantahay mideeda kale waxaan u mahadcelinaa asxaabteeda qaaliga ah oona soo koobi karin oonan tirin karin inta ay cadad leeyihiin boqolkiiba boqol aad ay u mahadsanyihiin ii garab taagantiin jira oo jooga aadaan ugu mahadsantihiin mana idin loobi doono walaalahayga qaaliga ah saa ii garab istaagteen maanta guushaan adinka aan idinku gaaray daraadiina u gaaray garabka istaagteena u gaaray وأنا كم هتسنتين فرتون عليه أديجاني دلالك هيسد سيود أبايو وأنا جانا ما عرفتي وكفر حسنا هاي أنت اللي ما نوقف دهني وسيد رجلي because واحد تقف سيد داعدة وشقي سنايو أبايو وأنا كم هتسنت هاي حدنا واحد أسيما لنا أصحابتي قالقة ويقرب تاجنا مرة بعد يمرس الدحاب أيجان وما هدعلنا وأنا ما هتسنتي وبالله توفيق